السلام عليكم. konton xikmadood oo muhiima lagana yiri nolosha iyo guusha. halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa konton xikmadood oo muhiima lagana yiri nolosha iyo guusha. xikmadda Ilaahay ciddii uu doonayo u hibeeyaa diinta ay doontaha haysata ciddaas. waxaan xoogga saaraynaa xikmadaha iyo oraha casriga ee ku saabsan horumarka iyo guusha. mu'minku waxa uu raadinayo waa xikmad. markaad go'aansatay inaad bilowdo hawl, markaas ayay waddooyinku kuu furmi. muhiimaddu waa in aad bilowdo. waxaa yidhi jalaaludiin arruumi, iska indhatir shay walba oo kaa fogaynayo in aad farxad ku noolaato. xorna ahow weligaa. george bernard. ahow sida aad tahay, waxaadan ahayn ha iska dhigin. ciddii kugu jeclaanaysa arrinkaas ha kugu jeclaato, ciddii kugu nacaysan ha kugu nacdo. william shakespeare, gabyaa ingiriisa. waxa aad hiigsanayso oo aad ku riyoonayso 24 saac ayaad noqon, waadna xaqiijin. waxaa yidhi doctor ibraahim alfiqi, dadka guulaysta ma ahan kuwa guusha muuqata xaqiijiyo, waa kuwa aanan isdhiibin markay fashilmaan ee mar labaad ku celiyo si ay u xaqiijiyaan guul. maxamed cali kalaay. haddaad dareento in duruufaha oo dhan lid kugu yihiin, dadku kaa hor imaadeen, waxaad ogaataa in diyaaraddu u duusho cagsiga dhinacay dabaysha u socoto, u dabaalo dhinac hirka ka imaanayo, gacantaadana ku jeex waddadii aad mari lahayd. henry ford. haddaadan ku qanacsanayn meesha aad joogto hadda, shaqadaada, meesha aad ku nooshahay, dhaqaaq. ma tihid geed meesha ku mudan. jim rohn. markaad qarka u fuusha inaad isdhiibto oo aad ku dhawaaqda in aad fashilantay, waxaad xasuusataa kuwa badan ee ku faraxsan inay ku arkaan adigoo isdhiibay oo fashilmay. jivara. halgamaa arjantiinaysa, laakiin ka halgamay kuuba. ha ahaan mid jilicsan oo dharbaaxa kasta dhulka dhigayso, naxdintu dhabarka ka jebinayso, fashilka isu dhiibaayo. noqo qof karti leh. waqti waxaan joognaa aanan aqbalaynin qof jilicsan. axmed diidaad, allah u naxariiste. hawl aad qaban lahayd maanta berri ha la sugin, markii laga reebo shayga aadan rabin in aad qabato intaad nooshahay. kama adkaan kartid qof aanan quusanayn. brian tracy. weligaa xoogganow, dhoolacadde. kuwa jallaafada kula maagan ha isweydiiyaan siduu weli u dhoolla caddaynayaa. tubac. doontu waa ammaan markay xeebta ku xidhan tahay, laakiin looma samaynin arrinkaas. paulo coelho. dadka khibradda leh wax ka baro, sababtoo ah ma noolaanaysid waqti kugu filan si aad wax walba u barato. waa arrin muhiima in aad dadka khibradaha leh wax ka faa'iidaysato. qof markuu hadlaayo dhegayso si aad u fahanto waxa uu sheegayo, ha u dhegaysanin si aad ugu jawaabto. haddaadan diyaar u ahayn in aad ismiidaamiso xilliyada qaar, haddaba diyaar u noqo in aad ahaato qof caadi ah. dadka guulaysta waa kuwa aanan ka baqin khatarta, waa kuwa ismiidaamiyo ee aanan ka gabanin waxa dadka kale khatarta u arkaan. jim rohn. waan xaqiijin karnaa dhammaan waxa aan ku taamayno, ku riyoonayno, haddaan leenahay qanaaco dhab ah oo ah in aan arrinkaas xaqiijin karno. walt disney. maadaama aad socoto, dhaqaaqayso, muhiim ma ahan xawaaraha aad ku socoto. muhiimaddu waa in aad socoto oo aad istaagin, ugu dambaynna waad gaari. faylasuuf shiinaysa.
guushu waa in fashilba fashil kuu dhiibo laakiin aadan isdhiibin aadan luminin xamaasadaada si aad u xaqiijiso waxa aad doonayso. Churchill, ra'iisul wasaare Ingiriiska soo maray: ma fashilmin, waxaan ogaaday keliya 1,000 waddo oo aanan lagu gaaraynin guul. Thomas Edison, ninkii soo ikhtiraacay nalka, waxaa xusid mudan in kumannaan jeer uu ku guul daraystay in uu daaro nal, laakiin wuxuu yidhi ma fashilmin, waxaan ogaaday keliya 1,000 waddo oo aanan lagu gaaraynin guul. sidaas darteed fashilku waa waddada loo maro guusha. mustaqbalka waxaa iska leh kuwa maanta shaqeeyo, dadaalo, maskaxdooda miiro. alxaaji maalik shabbaas, Malcolm X raximahullah: fashilka ama guuldarrada waa waddada guusha loo maro. Oprah Winfrey, oo haweeney saxafiyada aadna u soo daashay, waddada guushana gacanteeda ku jeexatay. sirta ugu weyn ee guul lagu gaaro noloshan waa inaad ogaato waxa lagaa rabo in aad samayso, kadibna ku dhaqaaqdo. Henry Ford: haddaad rabto inaad noqoto qof aanan laga maarmin oo muhiima, haddaba noqo qof ka duwan dadka kale. hantiile soo daali ayaa yidhi hadalkaas. dhulku cariiri kuma ahan qof socdo, dhaqaaqaayo, isbeddelna raadinayo, caqligiisana adeegsanayo. waxaa yidhi gabyaa carbeed. haddaad rabto aragtida qaansa roobaadka, waa inaad u dulqaadataa dhibcaha roobka, taasoo haddaad rabto wax wanaagsan, qurux, guul, waa inaad u dulqaadataa dhibaatada iyo caqabadaha ka horreeya. xidhashada suud qurxan laguma noqdo businessman ama nin hantiilaa. waa inaad naftaada run u sheegtaa, afkaartaada ka run sheegtaa, qiimaysana mabaadi'daada. Richard Branson, aasaasaha shirkadda Virgin Group: bilow hadda waxa aad rabta inaad bilowdo. muhiim ma ahan qalabka aad haysato, awooddaadana muhiima. muhiimaddu waa in aad bilowdo. wax kasta ayaga hagaagaya. waxaa yidhi laacib kubadda koleyga ciyaaro: labada maalin ee ugu muhiimsan bini'aadamka noloshiisa waa maalinta uu dhashay iyo maalinta uu ogaado sababta uu dhashay. Mark Twain: labalabaynta waa caqabadda ugu weyn ee kaa hortaagan in aad guulaysato. haddaadan weligaa fashilmin, waxay ka dhigan tahay in aadan weligaa wax cusub tijaabinin. ma rabtaa in aadan guul darraysanin oo aadan fashilmin? haddaba gurigaada ha soo dhaafin, waxna ha qabanin, gacmaha isi saaro, ma fashilmaysid. 20 sano ama 10 sano kadib waxaad ka shallaayay howlaha aadan qabanin ka badan ka shallaayadda aad ka shallaayayso kuwa aad qabatay. tallaabada ugu horraysa ee aad guul ku gaarayso waa in aadan isu dhiibin duruufaha kugu hareeraysan. kufitaanku wuxuu daliil u yahay in aad socoto. weligaa ma maqashay qof fadhiyo oo taraanturooday? weligaa ma maqashay qof fadhiyo oo kufay? maya dabcan. wixii rag u qasdo, rabbina aqbalo waa rumoobaan. mahmaah Soomaaliyeed. haddaad jeceshahay waxa aad qabanayso, diyaarna u tahay in aad wax walba u hurto, guusha dhabtee la sheegaya waa middaas. waana arrin u qalmo daqiiqad walba oo aad ku bixinayso. waa arrinka aad rabto xaqiijintiisa. guushu ma ahan in aadan qalad gelin, ee waa in aadan soo celin mar labaad qaladkii aad gashay. guuldarradu ma ahan waxa ugu muhiimsan ee aan ka baqayno, ee waa wax aan guul u aragno laakiin aanan qiimo weyn lahayn. in shay yar aad guul u aragto ood ku dhegto, naftirkeeda waxaa loo arki karaa guuldarro. waxaa fiican in aad wax weyn u hanqaltaagto. markaad ogaato
in aad gaftay oo aad qalad gashay isla markaas baa qaada tallaabooyin dhab ah oo aad qaladkaas ku saxayso. faylasuuf gariiga ayaa yidhi ilaahay wuxuu noo abuuray 2 dhagood iyo 1 carab si aan u dhagaysanno ka badan inta aan hadlayno. waxaa la yidhi baagamuudadu ma ahan in aadan hawl haynin. baagamuudadu ama camal la'aanta waa in aad hayso hawl laakiin ay jirto mid ka fiican oo aad qaban karto. waa qof wanaagsan kan qariya sir uu arkay laakiin in aad qariso sir lagugu siraystay taas waa mid waajib ah. dagaalku waa mid dhex maro rag aanan is aqoonin hoggaaminayaanna rag is-yaqaan. askarta dagaalamayso ayaga ka dad ahaan isma yaqaanaan laakiin ragga kale hoggaaminayo way is-yaqaanaan. waxaaba dhacdo in ay kulmaan laakiin raggan aanan weligood is arag islaayaan oo baabaha iska dhigaan. haddaadan qorshaynin ujeeddooyinkaada ahdaaftaada cidna ha eedayn haddaad xaqiijin weydo. si aan u guulaysanno waa inaan marka hore niyadda gelinnaa in aan guulaysan karno. waxa ugu wanaagsan ee aad mustaqbalkaada u qaban karto waa in aad maanta si adag u shaqayso. saaxiibka dhabta ah waa kan indhahaada ka akhristo xanuunka ku hayo halka dadka kale ay rumaysanayaan dhoolla caddaynta kaa muuqato ee aad ku qarinaysa xanuunka ku hayo. haddaadan samaynaynin wax ka baxsan waxa aad taqaano oo aad ku wareeganayso soo celcelinta hal wax weliga horay uma soconaysid. tijaabi qaabab cusub, wax cusub, bara culuum cusub iyo umuuro kala duwan. weliga ha ku wareeganin inta aad taqaano keliya. xikmadda 50aad ee ugu dambayso sirta guusha waa in aad horay u socoto, in aadan istaagin, gadaalna soo fiirinin, kuna mashquulin waxa waddada geesaheeda yaallo ee aad isha ku qabato waxa aad rabta inaad xaqiijiso. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.